aqoonta ugu wanaagsan ee la oran karaa Turkida Soomaalida uga faa'iideysaa waxa weeye jaamacadda faculty-ga ee Furan oo lagu magac daray Erdogan oo isaguna uu yiri gabdhaha iyo inamada xaggaas u shaqo tagaya oo raba inay soo bartaan caafimaadka waa qayb ka mid ah jaamacadda oo iyagu ay maalgeliyaan toosna Erdogan isagu magaciisii lagu caleemo saaray wuxuuna ku xujiyay dadka meesha jooga inay 2 sano gudaheeda ku hadlaan af Turki dhamaystiran oo buuxa qoraal iyo hadalba haddii ku hadli kari waayaana in iskuulkaas markaas laga eego oo san la siin shahaado waxa ka dhiganta haddii 2 sano adoo dhiganayay oo sanad kaliya kaaga dhimantay oo haddana aad afkii ku baasgareyn kari wada ma yar kaaga dhacdo in laga hormarnayo afkaas ku filgareynaysa waa ayaan darada ummadda Soomaalida haysata waa ayaan darada u baahan in isha lagu soo taagaa Turkiga iyo Soomaaliya walaaltimo nooc ma ay leeyihiin